Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa hadda la sheegay in uu dhisayo qasrigii madaxtooye ee abid ugu qaalisanaa uguna qurux badnaa uguna moogtay lacagta badnaa magaalo dhan oo layidhi waa jannadii adduunka ba layidhi ayaa hadda la dhisaya 3700 oo hektar weeyaan oo gebigeedu kaymo iyo moogtay durdur iyo barwaaqo dhexdeed baa laga dhisaya madaxtooyada lacagta lagu dhisayaana waxa layidhi waxa weeyaan 1 trilyan oo bir weeyaan waxaana la sheegay markaasi in mashruucan hadda moogtay sanadkii hore ayaa la bilaabay ilaa haddana wuu socdaa waxaana laga dhisayaa goobtaasi baa layidhi xarun madaxtooye oo ah qasrigii ugu weynaa oo moogtay iyo guryo degenaansho dhinaca kale biyo xidheeno harooyin waaweyn oo dadku markaasi sameeyeen wadooyin iyo goobo madadaalo waxaana ay sheegayaan dadka had iyo jeer ka faallado arrimaha Itoobiya in ay tani tahay riyadii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayidii uu riyootay bay yiraahdeen ahayd isagoo boqorka Afrika oo dhan ah ayidii uu riyootay baa la yiraahdaa moogtahay waxaana sheegay dabariyadii inuu kaga dhawaynayo isaga laftarkiisa sheegay baa la yiri oo yiri ayidii baa igu riyootay anigoo boqorka Afrika tiibu kaga dhawaynaya baa la yiri hadda magaalada soo la yiri waa jannadii adduunka ayaa hadda uu wadaa waxaana hadda design-keedii la soo bandhigay iyadoo hawshii la wado barwaaqada iyo marka durdurada halkaas ka socda waa sidii boqortooyooyinkii malaha horade moogtahay Mesopotamia iyo beerihii lushay iyo moogtahay ayuu malaha design-ka u eg tahay waxaan hadda lala yaabay marka quruxda iyo barwaaqada halkaas ka jirta xisbigiisana barwaaqa la yiraahdo ra'iisul wasaaruhu barwaaqadii uu kaga dhabeeyay baa la yiri markaasi inuu u ekaysiiyo magaalada cusub ee jannadii adduunka baa la yiri ee uu dhistay waa hagaag haddaba dhinaca kale waxa hadda sida oo kale markaasi ay sheegayaan xogo soo baxaya in xukuumadda Itoobiya laftarkeeda ayaa la yiri markaa dul badan bay soo gashay khasaaro badan ba ka soo gaaray dagaalkii imika dhamaaday Burhanu Jula oo markaasi dhexdhexaadiyaashii waqtigii dawladda TPLF wada hadallada Socdeen la hadlay ayaa war sir laga soo duubay marka Alagas Diwaal oo markaa ka faallooda arrimaha geeska ayaa waxa uu sheegay markaa in xog laga helay Burhanu Jula oo uu yiri 350,000 oo askari oo ciidamada federaalka ah ayay TPLF dishay oo ay cagta mariyeen marka waxa uu sheegay in dagaalka hadda dhamaado kaliya weeyaan dagaalkaas inuu ahaa mid lagu hoobtay khasaaro badan oo soo gaaray dhinacyada labada dhinacba laakiinse waxa uu runta ka sheegay marka in TPLF dishay 350,000 oo askari buu yiri sida uu Alagas Diwaal sheegayo weeyaan haddaba si kasta ha ahaatee waxa la sheegayaa maadaama xukuumadda Itoobiya hawl badan iyo kharash badan u ka galay dagaalka Tigreega TPLF wali awood leh iyaga laftarkoodu ma doonayaan baa la leeyahay waxaana sida oo kale fikirkaas si weyn u aaminsan dhinaca qowmiyadda xamaarada dabada ka riixaysa dagaalka in la joojin iyo Eritrea oo ah saaxiibkii Abiy dagaalka la galay markaasi TPLF la jabiyay baa la oran karaa waayo ciidanka federaalka kaligood ma jabiyeen baa Itoobiya TPLF sadarteed taageero badan buu ka helay markaasi dhinaca Eritrea nimanka subtida u qabtay TPLF magaalooyinka ka cayrsadayna waxa la yiri waa Eritreanka sida xogaha la isla dhexmaray ay sheegayaan haddaba iyadoo waxaas hawla ay galeen ma doonayaan bal dagaalku inuu si yaro fudud halka ku dhamaado hadal lagu dhameeyo waxay doonayaan hawshu inay sii socoto waxa haddaba dhinaca kale cadaadis xoogan ayaa Mareykanku iyo moogtay reer galbeedkuna ay soo saarayaan oo markaa waxay ku qasbayaan xukuumadda Itoobiya inay hirgeliso heshiiskaasi ay saxeexday oo markaa ciidamada Eritreanka iyo kuwa axmaarada laga saaray dhulka Tigreega waana hawsha ugu culus runta marka la sheegayo ugu adag ee xukuumadda Abiy Ahmed hortaala waa laba darar mid dooro in uu markaa saaxiibadii la dagaalamada Eritrea iyo axmaarada oo dhado khasab uga baxa dhulkan iyo oo markaa sida ku culoobaan qoladaasi iyo markaa inuu heshiiskii hirgelin waayo oo moogtahay lacagahan iyo xayiraadahan ay reer galbeedka saareena ay sidaa u sii saarnaato xukuumadii moogtay Itoobiya oo dhinac walba ila bankiga adduunka bixiyaashii dhinac walba xayiraad laga saaray moogtay marka laba dara mid dooro weeyaan in lacagta iyo moogtay bankiga adduunka xayiraadaha uu saaray iyo moogtay caqabadahan reer galbeedka si ay uga dabaalato ay la dagaalanto qolyahan moogtay Eritreanka iyo axmaarada iyo inay Eritrea xamaarada saaxiibadood mowqifkooda qaadato
oo markaasi ay lacagtaana sidaa ku weydo marka xukuumadda cadaadis baa saaran Abiy Ahmed runta marka la sheegayo dhinaca kale waxaa jirta hadda sida keliya tay kaga dabaalan karaan inay tahay xukuumadda Itoobiya waa qorshaha hadda wadaba la leeyahay inay markaasi ahaato ila meerayso lagu jiro oo moogtahay maya kuwana baxaya iyo kuwana hubka dhigaya maya kuwana baxay laakiin timeline baa yaara meesha labadii bishii November baa heshiiska la kala saxday bishan ku jirna moogti labadeedii labada Decemberna uu ku dhamaanaya 30 cisho ayaa la dejiyay timetable ah in hubka dhigista TPLF hubka lagaga dhigo ilaa haddana xabad kaliya tamay dhigin marka taa waxa la sheegayaa in markuu dhamaato muddada heshiisku ay keeni doonto uun isku dhac iyo markaa in gacan haddana la isku qaado haddana waa la isku xawaan urursanaya dagaal xoogan ayaana la isku diyaariyay inkastoo ay TPLF ku doodaysa leedahay dagaalku ilaa hadda uu socdaayo Eritreanka ayaa wada ayay leeyihiin iyo axmaarada kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaal ka nixiyay Mareykanka oo la sheegay inuu toos u gaarayo gantaalkan ayaa la sheegay inuu awood u leeyahay in uu duqeeyo dhulweynaha Mareykanka shalay ayay markaasi tijaabiyeen gantaalkaasi Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay tuhunsan yihiin in gantaalka ay tijaabiyeen shalay toole Kuuriyada Waqooyi ay ugu tala gashay inay ku weerarto markaasi dhulweynaha Mareykanka wasiirka difaaca ee Japan ayaa sheegay in gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay uu leeyahay awood ku filan oo uu ku gaari karo dhulweynaha Mareykanka sidoo kale ra'iisul wasaaraha Japan ayaa sheegay inuu filayo in gantaalkaasi yahay kuwa qaaradaha iskaga goosha ee loo yaqaano Intercontinental Ballistic Missiles ama ICBM tijaabada gantaalkan ayaa timid maalin uun kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabtay inay jawaab military oo adag ay ka qaadi doonto Mareykanku haddii uu joojin waayo bay yiraahdeen markaasi kaalmada military ee uu siinayo Japan iyo Kuuriyada Koonfureed hogaamiyaha aan jixin ee Kuuriyada Waqooyi ayaa leeyahay ayaa marar badan horay waxa uu sheegay inuu sida sigaarka u shidan doono Mareykanka haddii ay gacan markaasi isku qaadaan waxaanu hadda ay wadaaba moogta Kuuriyada Waqooyi hanjabaado toosa in ay markaasi u dirto xukuumadda Mareykanka kaasoo hadda ay u hanjabayaan marka in weeraro toos ay ku soo qaadayaan Kuuriyada Waqooyi ayaa card ay kula dagaalamayso China Mareykanka China iyo Ruushka ayaa had iyo jeer moogtahay saaxiib dhow la ah Kuuriyada Waqooyi waxaana weeyaan card ay doonayaan in markaasi kula dagaalamo ama ku cabsi geliyaan Mareykanka si markaasi uu tallaabooyinka uu ka qaadayo wadamadaasi dib uga noqdo oo dib tallaabooyinka u qaado haddaba waxaa tijaabintaasi gantaalkaasi hadda cambaaraynteeda ku soo biiray madaxweynaha caalamka la oran karaa hadda moogtay waa Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hadda moogtay caalamku isagu u talinaya xasilintiisa iyo nabadiisana ka talinaya maadaama la kala jabay bariga galbeed loo kala jabay isagu hadda dhexban ka taaganay buu arrimaha leeyahay waxaanu noqday markaasi baa leeyahay madaxweynaha caalamka oo isaga ayaa arrimaha moogtay wixii dhibaato iyo moogtay ama cuntooyinka kala go'aya ama moogtay shidaalka kala go'aya caalamka waxa soo dhan isaga hadda isku dubaridaya Kuuriyada Waqooyi ayuu hadda moogtay ma dhaweydka u soo diray dhambaal cambaarayn ah oo markaasi madaxweyne Erdogan uu ku sheegay in tijaabinta gantaalka ay tijaabiyeen uu yahay daandaansi dagaal oo hadda ay tahay kicin buu yiri markaasi uu doonayo in kiciso markaasi colaad xoogan oo ka dhacda dhinaca oo dhaxmarta Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed iyo Japan iyo waliba Mareykanka waxaanu sheegay iyadoo dagaalka Ukraine hadda culays xoogan caalamku ku hayo haddii halkaasina uu dagaal ka holco in caalamku marka khalkhal weyn u gali doono darteed waxa uu madaxweyne Erdogan u wadigay marka Kuuriyada Waqooyi inay joojiso colaadda ay sii horinayso iyo moogtay mar walba qarka loo sii saarnaanayo in dagaalkii saddexaad ee adduunka lagu dhawaado haddii dagaalka saddexaad ee adduunku dhacada nuclear baa la isku adeegsanayaa darteed cidna dan uguma jirto marka madaxweynaha caalamkan ku tilmaamay Erdogan waxa uu sheegay in caalamka in loo turo ay tahay oo marka dib ay u joojiso moogtay talaabo dib ay u qaado waqooyiga Kuuriya oo gantaalahan carinta ah ee mar walba ay ugu hanjabayso moogtay leedahay Mareykanka sida sigaarka idii cabayna iyo hanjabaada inay joojiyaan oo caalamka nabad ku soo dabaalaan buu Erdogan waa hagaag